maxaa Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu na dhahay kursigu waa furan yahay oo waa tartami kartaan oo qorqorna dhahay kursigu waa furan yahay oo waa tartami kartaan oo ay lacagteena qarashka la soo gelinayeen oo dadka masaakiinta ah ay meeshan ku dhibaateysnaayeen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. magacaygu waa Hani Cabdigaas Hani Korlibax ahna musharax xildhibaan Hope 053. walaahi horta maanta waxa dhacay waa wax aad looga xishoodo. waa Farmaajo gabdho in adeeradiis ah in uu u kala eexdo oo uu kuraasta u kala saddex reer Cabdillah ala magan ahna uu xareysto oo labo intuu lacag siiyo uu dhaho isku tanaasula saddexdeena reer warfaadalalna banaanka nala ku rafaadiyo oo hin aan meelaha la joogno. walaahi waa wax aad looga xumaado. anigu shalay waan yaabanaa markay Xasan Cali Khayri Cabdiraxmaan Cabshakuur iimaha salaad ee Farmaajo ku banaan baxayeen ka soo horjeedeen dadka asaga meel xun geysto isaga fogeysto waa mid annaga maanta na haysato. war annaga shalay waxaan ka cabsanayna oo ka jaakireyna dad eheladeena nin ehelkeena inta u soo qaawin inaan ka hor imaano oo villadaas ha ku jiro ee nooga badneed. maanta si asaga intuu u bareeray oo marada iskaga dhigay inuu gorgorada gabdha walaalihiis ah oo tuna xigsado tuna banaanka uu dhigo. xagee lagu arkay madaxweyne dhan oo kursi intuu shalay yiri waad u tartami kartaan maanta dhahayo hiblaaye u xiran tahay kursigaas ee naagahaas jaqjaqdooda hala iga saaro oo uu gatay guddiga khilaafaadka oo uu gatay guddigii doorashooyinka oo uu madaxweynihii heer gobol uu isaga gatay. xagee lagu arkay gabdho masaakiina in doorashadooda laga celiyo lagu hor jijiido. aniga maanta khudbadii aan ka soo jeedinayay xitaa kaamirooyinka laga dansaday oo aan la duubin oo hoolka anoo dhex taagan darbo banaanka la iiga soo saaray oo hadli karin oo la iigu daray waliba hanjabaad in la xiraayo. aniga halkan waxaan ka codsanayaa oo ka cadeynayaa ra'iisul wasaaraha dalka inuu tilaabo sharciya kursigaas ka qaado. kursigaas doorashadiisa maanta hal naag baa u xaadirtay oo loogu wada riday yaa u ridaayay matqaana waa hooyadeed miduu dhalay miduu aabaheed dhalay iyo 4 askariyo banaanka joogta. dadkii masaakiinta ahaayeen oo kuraastan xaq u lahaayeen oo u imaadeen inay codeeyaan war dad masaakiin oo baahan baa guryaha intay galeen oo guryahooda wixigaale ay soo baxsadeen bay guryo aysan awoodin xataa kireysteen. xagee lagu arkay nin dadkiisa eelkiisa saas u dhibaateynaa xagee ka dhacday madaxweyne dhan oo gabdhihiisi kala heelinayo oo u kala eexanayo. Farmaajo anigu shalay nin qaran baa u maleynayay maanta inuu nin qabiil yahay baa igu walaayo bilaayo tallaahi on arkaa. والله إن شاء الله رجي بان لي يا بايو ده هي فرماجة اللي ما وحوا قشت أنا قد بكون نقسم يجينا نقسم قفك إلا ندن تعقص بس ما أنت هدون نكلا تأو عد كلا وماشي استغنى لها وقبل نمي شرف بوك دور بدي لها والقدومية قبل كاهي ستان حل بانكي قل مذوقها هي ستان كيف فدرالك قدر ستان مدحويني هي هي ستان حقيقة كود عذي وزير ردي هي ستان حقيقة عالمك وقد عذي إن سدح قبلنا أو حرست أو سكمال أو يرتا سدحنا أو بنانك كود جوبه قرش كان إنتي نجبحين أون رفعنا أون رفرنا أو ضد مساكينة عن كاني أو النجي وحن أودنا إيه وحن أودين بقى قدرنا شلنا أو يركراست ويفرنتها من قبتها النجا وحن ديارنا دي جدي خلافات كلا قتي مش يجينه مو جنتاس وعجار لكن ماشي عن دور شك مدعين عدالتنا ما هين ما أنت وحي دعي كرسي جاسنا مدحوي رئيس الوزراء هدلك وحقعد سنينا إنه دب أقول نقضه دور شديد أنا حاضر ما أنت الباب بدنا لك صبحي أو عدين وهنا هو الحديث وحلي جسمينا ما فهمتي أنا ما أنت وحنا لك جلي وحقا معهن نلك أوهنسي أنا هذا أوهن ويبقى ما تي وحي هرب مجرته فرماجو markay dadka shalay dhahay ummadan Soomaaliyeed uma talin karo wallahi waa run koosmaanta arka dhaqanka anu shalay nin qabiil kuma taageereenin nin qaran baan ku taageeray Xasan Cali Khayri asagoo ra'iisul wasaaraha shalay marka aniga taageeray oo shafka u garaacay waxa ogaa value-gu uu leeyahay ee wadanka wuxuu u qabtay iyo meeshuu gaarsiiyay maan adigana sidoo kale aan kugu taageereenay waxa aafalatay wanaag ma ahan dadkaagi ehelkaagi aad basaas u kala rifeysay ma Soomaaliya oo dhan baa u talin kartaa wallahi may uma maleynay
alxamdulilah horta ilaahay waxaa ugu mahadnaqaa indhihii shalay iga xirnaa inay maanta ii furneen oo wax badan oo deep down kugu duugan inaan ogaadoon arkay aniga shakhsi ahaantayda